shantanadii waxaan ugu daray markii intaan luubnay shantanadii waa ilaahay naga nabadbixiyo oon luubnay oo meel faraq oo biyo aragnay mid kale nalaga waayay in shantanadii way nagu taallaa shantuna waa lugaha tuma garan markii dambe waxay noqotay markii intaan wiil xidhno militariga noo dhawaa laba dhishkar kaban tahay yaan fooda daray awali dhishkii ugu bidixayaan lagu yaacay waa lagu sii yaan sotooda sheerigu qabtay jaanna hore kala waa qayla weyne ha u bixin wariya ha u bixin hore waxaan wanaagsan taawadayaal idilhaantiin baa ku soo dhawaada qaybtii xigtay ee barnaamijkeeni xog iyo xasuus waxaa maanta marti igu ah waa Mahad Cismaan Celaabe oo loo garanog yahay Dhabuug kana mid ah saraakiishii ciidanka ONLF Mahad Cismaan Celaabe Dhabuug soo بسم الله الرحمن الرحيم وان لو هي ودغاغو halgama ama warigi waan loo wahay wareen adoo ku bilaabaya magacaaga bal taariikh nololeedkaaga oo kooban iyo halkii aad ka bilowday halgankii weysna بسم الله الرحمن الرحيم taariikh nololeedkayga markaan ka sheekeeyo sidaydaba qorigan horta waa qori isu dhiiba qorigan anoo haysto man ONLF-na ka mid noqday jabhadii dhamiya salaf baan kamid ahaa ragii tababar kaga baxay baan ku ahaa Guriceel 77diina waan ka qayb qaatay jigjiga ragii ka bixiyay baan ahaa dharkii niyar horta mihiyo bal sida in loo dareemana waan jeclahay taariikh nololeedka marka anigoo yar beledweyne yaan joogay kadibna jabhadii dhamiya salaf qayb kamida oo tababar laga siinay Guriceel baan ka galay Guriceel waan ka soo baxay kadib dagaaladii baan galay qorigii sidii aniga u haysta bay qixi dhacay Soomaaliya laga soo qaxay 91 ama 90kiiba nooca aniga u socda yaan geergoon xeradeedin wax ka ooday kadib geergoon xeradeedin markaan wax ka ooday qolo xagga nooga timid Djibouti oo kolka horena qoladii iska soo asaastay ma garanaysaa ee ururkii dhalinyarada la oran jiray oo ka timid Suuriya qolaas hawsha wadata qoladaas geergoon bay noogu yimaadeen qayb kamida qaybta waxaan ka xusi karaa ragay ku jiraan Sulcada Cabbaas Cabdullaahi Geni nin la oran jiray Samwado Axmed Nur Samwado way hadaniga garan baa garanay dhalinyaro noocaas يا عداني يقول أستراليا معني سوريا أرضي دي جوكتها هالك عيدن كون لفها مركز لغو أساسي قلب كسيدة هالك عدين دوغو يرنقنو دقال كان 77كي يا كشن قريسين أدو قيبتك هاي قابكو دعي يحق يرو كوبانو بهايسو أدو نضو مريو هورتا قابكي جيجيجا waxaa isku jiray sideedaba jabhadii dhamiya salaf ama Soomaali galbeed la baxday jabhadahaas ciidamadii Soomaaliya way soo galeen kadib ciidamada jabhada hogaaminaysay oo ayada dalaqoon buu ahay kadib jigjiga waxaa jirta marka in aan kor wareegaysanaynay 14 beri aan kor wareegaysanaynay markaan mari weynay oo aniga qolaan ku jira garb casaan hadda agteeneed aragtiin aan fooda soo galino halka rag badan naga go'ay kadib adigu ma xaan kolba meel ka soo galeen ku holinaba markii ugu dambeysay alxamaar baan ka soo jabsanay amen galaba oo 11kii galabnimo hadii lagu dhaw jigjiga maalin baa la qabtay waa beenkii ku dhaanay nin walbaana ay keena jigjiga 11kii galabnimo markaan soo galay roob baada ahayay shuuciyo wixii iyo adduunkii iyo bulolarkii gaalada tuurisay wixii baa isqabsay tareesadii iyo balaadii la isku ridaayay kadib habeenimo ka ruqaasatay xeera meelaha ku taalay kaalmada sokada birbiris loolan jiray aad u garan maayo inkastoo yara bariga xeerada bay fadhiisatay aroortiina haarahay gashay annagana birbiristii eeridaas aanu fadhiisanay waxa way eerida markaanu fadhiisanay qalabka waaweyn dib buu jiraa marka xagga banan ku jira ciidankii fanterigeenu kamid ahayn haaraha baan isku leelinay marka ama buuraha nibas u yaqaano ilaa iyo shabeelle ilaa iyo xagga baan isku leelinay anagoo fanteri oo ciidanka lugta muhiimadii halka bay naga soo garaacay maalinkii galab habeenkan qabanay galabtii ka dambeysay tii ka sii dambeysay ahayd baan u malaynayaa
raadeerkii baa la gooyay marka hal saaxa raadeerkana ninka noogu daran buu ahaa ee marka hal xabasa u rididba bahalaan caashawaal u bixinay oo diyaarada baa ku imaan madfici dhacayna way joojin halkii aakay dhacayna dusha ma ka garaac raadeerkii hogaaminayaan galabtii la gubay markii la gubay wayna waan garanayaa kii wareegaya yay dhamanta midigta ah baalku laba garbaab buu leeyahay garbaabka midigta isagoo wareega dhanka midigta wareegiisi xabad kaga dhacday xabad weyn ma qabsatay oo madfaca halka nimankii la oran jiray dhargiga halkaas marka ugu dhamaatay way ka dhaadhaceen marka sidii baan horta dabada ooga galay xaadow aroortii markaan ku dhaadhacay iyadoo 10 aragnay way sii dhaqaaqday taariikhaanki garan baqaran dhamiyo salfarkii ha uu garan qolo jabhada loo galiyay deedna meesha la yiraahdo shabeelle qolo jabhada hay halka baa la isku helay marka waa tii hadii ugu andabada ka wadnayta lagu helay halka marka horta taariikhu waa sidaa kadibna markii hadaad garan oo shariif iyo goray iyo dhulka la isla galay way aan goray baan marka ku dhaawacmay oo taariikhda way iska jirtaa farahan way ugu go'een caloosh way iga soo dhacday lugaha qayb bay iga waxaysantay dhamiyo salaamtaas anayda ka xusaaya waxay u maqaalaa inaad dhowr jeer ku dhaawacantay halka WSL laftiisa iyo sadagaalkaas bal inta jeer soo dhacay goray mar baan ku dhaawacmay hargeysa la geeyay waan soo bogsaday wax yar baan maqnaa dhowr iyo 30 bari baan maqnaaba kadibna waa soo noqday qoloji baan ku dhaawacmay kadibna haddana waan iska roonaado iska dusid way iga dustoon kadibna waan roonaaday oo shariif haddana igaga dhacday marka dhaawac saddexda bay ugu gaadhay dhimiga salaf way hadana basman halay haddaan inta kaga soo laabano taariikhda kooban ee qaabkii jijii loo qabtay iyo xasuusteeda bal markan haddaynu soo laabano aasaaskii بدون waxaa xustay inay jireen dhalinyaro ciidanka lagu aasaasay oo Soomaaliya adka ahaa xagee ayuu afdhiin ugu horeeyay in yar horumariyay qolo dhalinyaro ah oo ururka dhalinyarada ee Soomaali galbeed dooran jiray iyo xagga Suuriya nooga timid Djibouti waan ku celinayaa Djibouti bay soo mareen halkanay marka yimaadeen geelgo'an markay soo baxayeen waa la isla haysanay kadib ciidanka qalabka sida geelgo'an aan ku asaasnay ciidanka laba jiha uu ku imaan jiray marka mid gobolada iyo degmooyinka yaa soo gudbin jiray midna asaga iska imaan jiray marka ciidankii nooca lagu asaasay markii hore dadku wuxuuna lahaa qolaan xirtay xagee ka timid su'aal markaan kaaga soo qaado geelgo'an calankii markaan sunnay calanka oo la faan sunnay hada heedeen baan la yiri adu isfahanna geelgo'an kadib waxaan sunnay ha la yiraahdo dahare oo garba qolada reer garba waxayna tiri qolaan xirta xagee ka timid annagana waxaan ila qolo waxaanu nahay oo la yiraahdaanu nahay oo lafti baa la garan waayay marka halka adigu waxay joogtaba kadib waan isfahanay marka reer garbo shacabkiina sidii baan isku fahanay kadib waxaan u sheegnay inaanu urur gobonimo doonanahay oo noocaasa oo magaca leh sideedana magac bixintanu 84 bay ku 984 magaca la bixiyay laakiin wax ku dhaqmay ma jiro waa kii ururkeeni dhalinyarada lagu kala didin jiray Soomaali galbeed bariga bedelay magac la bedelay muhiimadii ciidankii markaan aasaasnay ciidankii khayr Allah ka dhigay ciidan xoog loo noqday marka waxay noqotay halka marka inaanu dakhli weyn oo haysanina ma jirin oo xogaa qolada Soomaaliya ka timid oo ay bac noogu wadeen intii markay naga waxaysantay xaaladdu aan dhamaysanay waxay noqotay marka inaanu dhaqaaqno aanu anagu isku tashano waayo halku dhigeena ahaa mintidnimo isku tashi waan isku tashanay waxaan ku gaarnay marka inaanu garaska guranno marka geedka garaska la yiraahdo inaanu guranno midhihiis
garasku waa laba waji marka mid wamka laga cunaayo bahal guudan buleeyo laga cunaa midna ilax baa la dhahaa bahal ilax la yiraahdo oo dambe ilaxaas baa la ururin marka qolaan foofta kiyo in guudan ku watana inay ku keentaa laga yaabaa ilax inay ku keento waa la garaamin marka horin heble intan koo hebel intan saasa la sameeynaya waxay noqotay berigi hore marka ilaxaas baanu kala diirka ka waxaynayna laba beer buleeyo isku dhagan labada beer baad kala goynaysaa marka digsi baad dabka saaranaysaa biyo baad ku shubaysaa beriga garaska siisaba wax qaraan marka saddex koor waa inaad dhaqdid marka kolku karaba waad ka qaadi oo xogaa yar jilco waad dhaqi biyaad ku dhaqi oo dambas baad ku dhaqi kolka dhaqid neef ka dhigta hadana yaa biyo ku celinaysaa iyo dabki saasan beriga hore ku cuni jiray kharaarku aad ugu ma bijirin marka berigi damaan ku ilbaxnay marka dab weyn baad shidanaysaa marka dabka weyn kolkay dhuxuluhu dhacaan yaad garaskii aad soo guratay beerkiisii oo deerkii intaad ka qaada beerkii ood kala goysaad ku seedhisaa mar ku daadinaysaa aduu beer dab la saaran dhaha dhusleeya kadib qori yar baad qaadanaysaa waad ka soo dhuuranaysaa marka beerkii beerkii oo yaryar oo ku dumay yaad ka soo guran damastirisi waxa ma jirtay ayta kolka saa ugu soo waxisba kee kullo beeraad moodi yaad afka ku sii tuuraysaa marka karsigii iyo digsidii baan ka raysanay marka horta hawshan halganka noocaaseen yaan ku soo bilownay sideedaba marka bilowgii ugu horeeyay noocaas ahayd isku tashiga buuna xaalad isla waqtiga aad sheegtay inaad dagaalka iclaamiseen guud ahaan dhaqaalaha xilligaas gacantiina ku jiray ee hayseen waxa inta dhan ayuu xabadda markii la iclaamiyay horta waxaan haysan 160 riyaal oo la faaogaata ama ragga dambe qaybta dambe ha ogaato horta dagaalka markii la iclaamiyay xubnaha kolaha dhexe iyo ciidanka taliskii ciidanka yaanu soo fariisanay dagaalkii baan ka doodnay marka dagaalka markaan ka doodnay gudoomiyihii jabhada Allah naxariisto waqtiga ah Sheekh Ibrahim Abdallah yaa Jeermanka noo waxaan go'aansanay marka in dagaalka la galo maadaama noocan halsiibkan iyo ma garanaysaa ee gobolada iyo degmooyinkii oo nin qarkii lagu leeynayo iyo nidaamkii shuruudihi aan isku ognaa uu ka baxay Tigray in Tigray baa dhulka maamulahayay marna waa kay duqeydeena la iskugu geeyay goday ninkii garanaya ee la yiri macnaheedu yaani أنا فويدي دي مقارنة يسوى كان قانين معنيه وان قئنا يلا ذا كتالية أيضا قرأ عني بادي قويستان قرأ عني أفتنت كدب ملك زناوي مركا ماشي ملك زناوي أكيد تقالك إعلامي تقالك مركي الإعلاميين أنا كان وان إعلامي نجدي قل كان اليوم مدني هوسن النقل قد جاي حارف كينو سيدا يلي أسوق إعلامي وين إن تقالك سيدا dagaalkii sid baan ku galay 160 riyaal anagoo haysanaan ilaamin ogaada 100 riyaal ee haysanay qolyihii golaha dhaxa waqtiga ahaa baanu siinay xaggan iyo ciid iyo Soomaaliya iyo xaga gaan baan orday u socday idinku ciidankii geergoan markaa joogay ciidan uu horeeyay oo ciidan war dheer baa loo diray qaybna waxa loo diray qorraxay qayb macnaheedu kala konton afraad la baxday na min dhacir bay joogtay min dhacir dagaal baa ku qabsaday kadibna geergoan bay noogu yimaadeen oo Tigreeg baa soo weerarayba min dhacir waxay ku taalaa dhagax buur bay ka tirsan tahay waxayna ku taalaa tuulo diyaar la dhaagteeda waa ceelka marka ciidanku wuxuu ku tagay reer Ismaaniya reer Dhugood baa isku leen jiray labadaba reer Isaaq jabhad saas oo kala dhax fadhiday marka jabhadii nabadgelyada xalinaysay yaa weer lagu soo qaaday marka rag baa halka lagu qabtay marka 7 nin oo inaga ah inta ku soo qaadaysa marka waa Tigreeg waa Tigreeg kadib dagaalkii sidii buu ku bilowday marka
boqol lixdan riyal boqolkii markay nimankaas la tageen xubniga golaha dhexe ee orday ku socdeen ku 60kii baan noo hadlay ciidanka geergoor markaa ka soo baxaya qaybahan hore jiree loo dirdiray gobolada mooyeen anaa wata marka haddaan inta kaan hagan lixdanka idinka idin soo haray waxaan rabaa dadku inay fahmaan qiyaas ahaan haddaad qiyaasto lacagta xilliga joogtay intee ayuu dhigmo isleedahay adigu kulley waxaan u malayn 60 riyaal waxaan u malayn berigaas ama hadda waxay u dhigmaysaan baan u malaynayaa berigaa bay ka qaalisanay waayo waxay noo soo goysay gadbad cambuulo yaryara gadbada labadii nin soo qaaday soo ibisi waan garanayaa ee loo diray allow naxariistay jeefad baa loo oran jiray nin kalena cali xasmade baa loo oran jiray allow naxariistay labadaa nin baa soo gaday gadbadii waxay noqotay marka inaan kolkay karsi noo gaari weyday inaan babacsano babac yaa yaqaana ninkii yaqaana dugsuud baan dabka saaray waan ku suuray in saliidan saa ku babac way noo babacsantay qaadada la yiraahdo waa salool ninba si u yaqaano qaadada shoroobada lagu qaybiya ciyaalka ee yararka caaga ah qaadadaabaan marka ku qaybsanay waxa weeye horta hawsha marka saas baa qaadadii baa noo gaadhay nin loogu celcelinna ma jirto midda kale haddana waxaa bilaabatay jinow wax la yidhaahdo jinowga maalinkii haddii nin dagaal ku jira iyo nin hawle ku jira tahay habeenkii baan urka ku raadin jiray geedka jinowgaana wuu uraa jinowga markii la helo waa la xabuujino goyaalka la hoos dhigo rub oo laanta dheer baa laga soo waxin rub oo goyaalka laga buuxin ciidanka loo geynayaa horin iyo unug iyo koox baa loo kala siin saasaa loogu garaamideedna jinowgii haddana ciidankii geed kale marka waxaa jira horta taariikho badan baa jira geed kale oo la yiraahdo liban bari ninkii yaqaana oo dhulka dibilku aala ka baxaa xil yar oo caana leh baa ku aroola dhulka inta horena waa geed yar oon xoolana cunin kolad geedkaas oo goysay xilkiisa bad qoysa in badida ugu tago inta leeg inta badida la ururin marka inta badida la garaamsan hadana marka horta hawlahan macnaheedu halgankan ama hawshan in u soo maray marka hore sidaas ba ahay intii halganka hogeysan ku jirtay xilalkii aad ka soo qabatay jihada dhexdeeda iyo darajooyinka aad soo martay ilaa heerkee ayay gaadhay horta su'aasha haday weydi darajaad ka gaadhay tiraado horta waxaan ka bilaabay taliyo unugii waxaan ku gaaray banduurka ciidanka guud taliyo unug baan ka bilaabay taliyo koox baan ku xijiyay ninba afkiisa u yaqaano taliyo horin baan ku xijiyay taliyo urur baan ku xijiyay taliyo qayb baan ku xijiyay Soomaa garan kadibna xubin golo dhaxaa noqday kadibna guddiga fulintan galay kadibna abaanduurka guud ee ciidamada oo NLF baan lahaa darajooyintaasaan ka soo maray ilaa haddana guddiga fulintan baan ahaa marka mahadsan waxaan rabaa iyadana inaad loo jilciso marka la yiraahdo hadda unug iyo horin iyo koox iyo qayb iyo dadku ma fahmayaan hadda unug baa hooseysa maxay markaa toban bay ka kooban tahay ama 11 reer galbeedka iyo reer bariga midba in bay siba u tirsadaan laakiin muhiimadii 10 bay ka kooban tahay kooxduna 30 bay ka kooban tahay waa gaar Soomaa horintuna waa 3 kooxood waa 100 iyo wax ururkuna waa ilaa 300 ilaa 400 ilaa 500 maruu ka badan ba jiro ciidanku ku fara badan hayo waan Soomaa qaybtiina maxay tagaysaa ninkii garanaya waa 3 urur oo midba meel jiro iyo xukunta waa sidaan anagu ahayn hadoogow orgaantada ciidamada kale ma waa sidaan anagu ahayn 3 urur baa xukunta qaybtaas mudadii aad ku jirtay halganka weysnaa ee wanaagsan
أما سجود بحدك ويدي مسجل أيام القرآن قال وين جودهان أنا صدق قر وليه سلفنا أيضا صدق معناه حب صدق قر مركان كلها حبض وإسكاب بدني أو كو يلا يصدق أنت كوكو لعبه هل مر بعد أو أنت أجوه هتياه وحبضي لما تيرين هي داوعون بالله تيرين لكن أول شان كوكو تال يا هل مر بعد داوع ما أوراني إمسا كوكو تال مركل يقول ما أوران كرت شان بايقو تال من اللي بايقو تال لكن داوع مدن بلقى السوق هذه منوكل قال كرت هذا بالمثل دجال كي معنيه دجال عنقوسي وبحنا مر بعد كل داوع ما midkalo iigu daraana anagoo intaan ciidankii meel kaga tagay oon ku sii soo dhulka ninkii garan baa garanay ku sii socdo meesha la yiraahdo gabagabo yaa meel qabdi dahriga u dhaxaysa jiic meel ay dhahaan oo goranac la yiraahdo uma qolo iskaga hornimo tigraagiya marka wiilasha ila socda waa shantii iyo aniga ku shan ah shantanadii nimankii waan holinay marka shantanadii boo inagu dhacday shantanadii boo inagu dhacday shantanadii markay inagu dhacday adigu iska caabinay oo iska celinay abarteed baan wasanay ku yaroo hadda geerisaana maqal baa wuxuu yidhi marka lug bay iga dhacday marka aniga way ilagatay marka aarbuudana wuxuu yidhi alla taliyihii way ku dhacday arbaan wargaalada hay maqashin إن أديكم مقشة تريه وحام مقشة موقتي سنك كاسي جلي أربع ورجال مقشين شنطة النادي وحنا قلنا المركي إنسان لومنا شنطة النادي وإلهي نجنا بالبحية أون لومنا وما الفرق وبيارك نمتقل إن الجو إن شنطة النادي ونقطع الله شنطة نوالوجه ثم قرن مركي ده محين نقطة مركي إنسان ويل حدنا oo xarka aan macnaheedu wadanay oo meelaha dhinaca noogu xidhnaa aan mid furo oo wiilka dhaxda ka xidhno kee lugta kaga taalo oo la limino inaan soo waraabiyo kadibna caagadii uu noo soo dhaamiyo kadibna asagii aan soo jiidano tanoogu dareyd baa taa ahayd markaa shantanad bay nagu dhacday markaana halkaa bay kaga dhacday midna isla eriyada oo laandheer haddana oo gabagabaagaheeda cinjirka waa maalinkii gacanta iga burburisay marka gacanta iyo lugtan iyaga dhacday misigtii iyaga dhacday saddex marka waa sidaa saddex koor baan ku dhaawacmay xabadu ayagu iska badan yihiin laakiin oo dhaawacagi baa aad shan kugu taalaa lagu hebel waa dhaawac laakiin imsa ku taalaa hadii lagu dhaho waa lagu tirin karaa طبعا marka lagu jiro halgan hubaysan marka lagu jiro iyaga oo kaameesha oo dagaalamaya ama isku hadafka iyo mabda'a ku wada dagaalamaya ay si guud isu jecel yihiin haddana waxaa jira dad dabeec ahaan si fahmo u saaxiib wallahi saddex ma ka xusi kartaa saaxiibadaadii aad gaarkaadayso horta saaxiibku wuu fara badan yahay ninku mar hadduu naftoore yahay oo xabadii isla ridaan gidii horta saaxiib baad wadatay laakiin ninaad u dhow isu yar dhow yihiin way jirtaa hadda markaan kaaga soo qaado raggan isu dhoweyn oo kale maba noolaba deeq cabdiraxmaan baa kamid ah loo naxariistee maxamed salaad dolaal baa kamid ah loo naxariistee qayl weynaa kamid ah loo naxariistee nin la oran jiray maxamed cumar goglaala kamid ah loo naxariistee sheekh deeq baa kamid ah loo naxariistee raggan isu dhoweyn saaxiibka inna saaxiib baa kala jira Soomaa ayadoo ummadda is wada jecesho xabad lagu wajahdo saaxiib baa jira Soomaa garis raggan iskugu dhadhaweyn raggaasan kooda hadda ku yaro deg baarigaga baxay gaambiis loo oran jiray asagana waa wiilashan ugu jeclaabo kamid aha deeq muqaddim baa kamid aha waa wiilash yarka aha ragga waaweyn laakiin Mustafay baa kamid aha ninka la yiraahdo Cabdi Guud Cadaa kamid aha Cabdi Xakiin Yuryul baa kamid waa raggan isu dhoweyn Cabdi Kariin qalbi dhagax raggan iskugu dhowno kamid yahay ilaa waqtiga ibn alif la kamid ah raggan isu dhoweyn weeyaha joogow macnaheedu kolkuu hebel halka maro inuu wax iska celin kariyo in kale aan is ogeyn weey waay hadaynu soo noqono isla qisaska
halgan kalaftiisa dagaalada dhex maray jiray dinkii cadawga ma xasuusta maalintii ugu farxadda badnayd cadawgaas ka hormaatay si fiican inta u joogtay ها horta farxaddu way fara badnayd ninku markuu guulaysto wuu iska faraxsan yahay aniga hadda dagaalo badan baan galay ilaa iyo dhimidis alaf ilaa iyo waqtigan onelef dagaalo badan baan galay dagaalkan laakiin ugu jeclaa waxaan ka gali dudumacad meel ay dhahaan oo fiiq agteeda qola meesha fadhida oo ah nimankii militariga ahaa yaa onelef waxaan go'aan ku gaarnay inaan weeraro sidoodaba xeriyahooda waa waqtiga dagaalka gulif loo bixiyay buu ahaa waa dhagax meesha dhagax madow dudumacad iyo haarcad saddexdaa baan ilaaminay marka xubnaha golaha dhexe wax ilaaminaya waxaan gudaha ku joognaa waa aniga iyo axmed aroori allah u naxariiste iyo allah u naxariiste cabdi cabdullaahi ninka xarunta noo jooga marka waa cabdi cabdullaahi cidda micnihii dagaalka ilaaminaysana waa annaga saddexnada amarka siinaysa qaybaha allahi waxaan ilaba cabdikaafina wuu nala joogaa oo xubin gola dhaxaa ado hadal yaan kugu daalinine yaana dambaabin waa aniga iyo cabdikaafi iyo cabdi cabdullaahi aroori wuu maqan yahay waan ku ilmaamay dagaalka markaan ilaaminay anu qaybta gorgor la oran jiray baan dagaal geliyay dudumacad baan ku dhaqaaqay dudumacad dhulka maan aqoonin oo raggii saanka aan u dirsanay yaa dhulkii noo yar garan waayay jabadu way wadaogtay taariikh bay leedahay habeenkii kolkuu ciidankii aan sii guuraynin iga hurdooday yaan ciidankii fayliyay marka haddii idinku aad ma taqaanay darandoori wax la yidhahdaan geliyo si aan hurdada uga kiciyo waxaan guraba joogsa waana way istaageen waxaan ku idhi ama wadadii garan waaya ama dudumacad garan waaya 8 duhurnimana allah ka dhigay bari inaad dudumacad gelaysiin baa iga wallahay baan ku idhi waan u dhaastay meesha raggii waxaa la yidhi war odaygan dhabuukeehe sidaa leh waase miyuu inaga hurda fududya waa dhaqaaqa aabihim waa la iscaraabiyad anna waa saan rabay dudumacad waxaan sii soconnaba waxaan gallay 1 saac oo 20 la oo subaxnimo 1 saac oo 20 la waagu ugu baryaha dogow ayadiina si habeen ku dhintifaac ugu jirtay iyo show dib u saactay waagu markuu bari ina moogta wuxuu ilaahay ku yabiyo ciyaar meehe reeriba kolkayna arkeen marka 3 hormood baan ahay 3 hormood aniga taliyo horin baan ahay yaan iska dhigay marka ogow yaa 2 nin oo hadda aan joogin oo shiiday gorodiiliye iyo sanqalaala 2 hormood baan u kala dhibo qaybta taliskoodii ah anigu marka qaybta kama tirsanay abanduulka ciidamadan oo ana hawlgelinayay laakiin 3 ay kan baa wadanaa marka amarkay ku ahayn lama qaadan karaan qoyl tali ururow iyo tali horin iyo yar yarkiyo mid boqorgii beekam ka baan qoray oo qaada amarkayga baa labadiina dhageysanaysa ilaahay wuu nagu guuleeyo hada waad garan haday uu maamulku bato waxba aad uma hagaagahayo kaygu ma dhageysanaysa baan labada taliyo horin waana taliska qaybta dogow gori jiiriya allah naxariista waa banduulka qaybta gorgor sanqalaal allah naxariista waa siyaasad qaybta isla gorgorka ragii maamulahay baan kor ka qabsaday garoo ujeedada waxa weeye marka ana taliya ka subaxdan horta ugu farax badan subaxda baa haydo kolkaan galay militariga noo dhawaa 2 dhish ka rakaban tahay yaan fooda daray awali dhishkii ugu bidixayaan lagu yaacay waa lagu sii yaan sotooda sheerigu qabtay jaanna hore gala waa qayla weyne ha u bixin wariya ha u bixin origo yaan kugu daalin 15 daqiiqo xirada ilmeena taagni labadii dhishike iyo intaas oo saneefara intaas subax ma igu orno farax badneed ragna nool waan soo qabtay ragna nool ciidankii kamidana waan soo qabtay subaxda baa igu farax badneed waxa kala ka imo farax kale hal wiil baan iga geeriyooday dagaalka inta aan ku qaaday ama inta aan harko cad galay labada dhishki meesha rakaban tahay aan ka galay hal wiil baa iga geeriyooday farax wiil loo intiraa naxariis hadaynu soo laabano
geesta shacabka bal doorkii uu ku lahaa shacabku halgankii gobeysnaayeen waxay maanta waad mahadsantahay waxa weeye horta shacabku halgankan sidiisaba markaan cilaaminaynay boqolkiiba 60 in shacabkeenu aan ku tiirsanaano yaa lagu go'aansadayba halganka shacabka waday Allah weyn ha waday shacabkana taageero lahaa caanaha biyaha baadka dhaawaca ayagu ma gacanta ku hay 720 sano xabada ciisi waa ku gaabin bee 720 sano dibad wax nooga iimaanaynin walaalle shacabkeenu ma halganka waday waad garateen Soomaa shacabkeenu waa halganka hooyada weyn 720 sano halgan ku socda shacab kaliya lama aragti oo meel kale waxa uga iimaanay sababtoo ay tahay dhaawaca maanta kolkay 20 ka dhaawacanto 20 ka baad meel geyn shacabku ma looga adeegtay aani ayaga u keen biyi ayaga u keen dawadii ayaga u keen way dawlad marka u keenan kulay halkan oo kala gabar ka diri ama hooyad ka diri ama wiil bad ka diri ama adeer aabad ka diri halkan oo kale intuu ka tago meel heblo kale uu ka soo qaado سمعت سووا هكا كسو قادي تودا ابو كيني داوع marka daawac saas ku bogsoon haya kabis bay noqon shacabkeena wuu iska baaso ma taqaan ayagun baa ka bahay kolkii anagu aan kabista u xaal weyno ayagii baa ka bahay marka shacabkeenu qayb libaax buu ka qaatay khayr Allah siiyo 720 sanadood garo maadaama ahaayeen hawd ku jirto oo hawd ku dagaalamaysay saanad iyo gaadiid iyo dawlad wax haysanaysan jirin gaadiidka ugu wanaagsan ee aad isticmaali jirteen muxuu ahaa waa awrta waayo baabuur ma haysan waa nagiba geed hoostood fadhina waa awrta gaadiidka noogu fiican waa awrta dhaawac lagu qaadi shacabka ba ku qaadiba adigu waad u dhiibi iftigibaad ugu rari way la tagayaan saalan kaaga soo qaadi dhulka ninkii yaqaana meel jingada la yiraahdo oo garoonka agtiisa garoonka bari oo u dhaxaysa garoonka iyo waxa u dhaxaysa garwa jingada la dhahaa halkaas nafta horyaal baa meel baraaga u soo arooray saalan ku siin nimankii cadowga aan isku ahayn colka hayno fadhiye u yimaadeen waa la dagaalamay wiil baa halka ku dhaawacmay habeen bayna noqotay wiilashii way arki waayeen taariikhdan ku siinayo wiilkii markay arki waayeen wiilashii way tageen cadowgii meesha fadhiya la soco aroortii markay tahay way ayadiina meesha ka ruqaanstay way meelaha laakiin raadkoodii qaaday nimankii ayaga ahaa wiilkii dhaawac ahaa gabadh baa soo tagtay meelay bay marmartay wiilkii xabadu qarsatay ee dhaawaca bay aragtay dhabarkay saaratay waa taariikh ninna laga qarin maayo dhabarkay saaratay way la lugaysay meel bay geysatay way noqotay arigoodii bay soo dareerisay arigoodii bay raadkii meesha ka qaaday iyo dhulkii iyo raadkii ayadu u qaaday wixii bay arigi ku dareerisay kolkay asagii ku geysay ya hadana meesha ka qaaday arigi wax barqin bay iska dhigaysaa la socoyaa meel kale geysatay waxay noqotay meesha intay tagto inay arigi keento oo orado oo meesha wax wiilkii ugu geyso ya kadib kolku gobolku dhacay qolo dhulka joogto ayagan xubnaheed inay u yeedhay ritiin lagu rartay ritigii lagu la tagay wiilkii sidii ba meel lagu geeyay jibhadiina sidii ba wiilkii loogu geeyay waka gaadiidkanaga waka dadkeenina waka asida hadda hal iyo laba aad nooga xusto maalmihii kugu adkaa ama kugu ciidiga badnaa ee isdahdo horta way fara badan tahay way fara badan tahay horta ninba maalin baa ugu danta ani horta maalinkii la qabtay bay igu daray laakiin maalinkaasu waxaan ka sii naxdin badanaa maalinka ayada inaan dhintaan u diyaar garoobay laakiin maalinkii igu daray waxay ahayd dagaal ceel weyn aan kuu sheegay qoosiga la yiraahdo yaa xabadii u dhacaysa yaa nalaga fara batay
ciidankii kalena xagga u jeesaday annaga xaggan kaga ridnay calee kale waan isdhex gallay hal wiil baa markaa igu yar dambeeya wiilkii adigu markii dambe markaa dhinac buu ruqansaday aniga qoladii fooda is yar daray markaa ma shikoon waryahay kuwan ama ku yar qabtaanba halka maalin yar shikay igu yar daray maalinkaas ay horta waayo tan ayada aan ku sheegay maalinka la qaban doono Soomaaliya ay qabatay taayo tirsi ma leh oo nin Soomaali ah hadii jid ka qabtay naf ma laha laakiin xabad dhacaysa dhaxdeed ta igu daran baa taahayd aan maalinka igu daran maalinkaas ay kii yar kaan uu yar wargeeyo wuxuu yiri ninkii dhabuukaha in la hareeriyo igu dambeysay hadda uu joogaa ninkii yar kaa nooca sameeyay kadib waxa igu soo rogaal celisay shan wiil shan bay igu soo rogaal celisay shantii wiil qaybo ma nool qaybna way noolahay maalinkaan yar yaabsaday in soo balaaya taagan maalinkaas ahay marka la fiiriyo isjacaylkii ka dhaxeeyay doctoriyaasha ka dagaalamayay iyo saaxiibada hal iyo laba dabeecadooda oo sidaa bay ahayd horta waxaan heerka 27 sano ku soo gaarnayba waa isjacaylka doctoriyaasha koobiya man kala cabi jiray hadda markaad reer u digtid dadka dhalinyarta u digtid ee taa cadays iyo biyo iyo baad iyo waxay nooga keena biyaha hadii inkii caagadahoodii loo soo buuxiyo mayna ku cabi jirin halka ilaa ay keenaan bartii laga diray mayna cabi jirin caanaha lamida nin wax arkay caagadihu la tagay loo buuxiyo rag la tagay oo la yiwantan aniga soo hadhay hooy caba oo ilma yar raali ahaado Soomaali garan kalgacayl haduuna jirin 27 sano lama qarsadeen lamana wada joogin taa horta ayida Soomaali garan waayo sababtu tahay dhamiyada kamid baan kor qalin yar ku darsado hadii anagu Soomaaliya taa kulaynaysa intaan joognay yarideeda ninkii garan baa garantay wayna dawladda Soomaaliya gacanta nagu haysa midana Allah weyn iyo shacabkeenu ba gacanta nagu hayay 27 sano iyo waxa isku midkooda badan 3 sano farqi weyn baa u dhaxeeya waxa keenay marka waa kalgacaylkii naftooriyaashu isticlaayeen nishiido gani cala loolan jiray ya gudoomiyaha hore jabada maxamed Umar wuxuu ku yiri dhaqaalaha macnihii aan meel ka helo kuma bogsanne madax salaax iyo huna seetahay iyo koobka caanaha aan u soo qaadayniyo intaas ku bogsanaa laakiin dawo ilaahay mooyeen dawo kaloon ku bogsanna ma jirto in cala marka waxa kalgacaylka macnihii noocaas oo hadaan noocaan kalgacayl isu qabin oo na isjeclayn 27 sano ma baan jirin maalmaha gaarka mid kamid ah inuu dib u laabmo iyo maalintii ku gaajado kamid in horta gaajadu way iska jirtaayo iyo oonku iska jiray rafaadku laakiin maalinkan igu daray xagga oonka iyo gaajada waa maalinkii doorku shaqdeeq aan ka soo baxnay Soomaaliya ee shaqdeeq dhaxda ku shiiday iga shiiday in ana dib u noqday yaan 5 habeen mis 4 habeen iyo 5 maalmood baan biyo baad midna dhadhamin anoo geed hoos aala maxaa malaadu dhabuukii laga subxaanaysan jiray anoo geed hoos aala yaa qorigeyga niman shacab intay soo raad qaadeen yaa ay qoriga bayrka laga dulqaatay oo nuuxsan waay waqtiga igu goonay gaajo badnaa waa sida waa midda waqtiga laakiin gudaheennana gaajo iska jira laakiin hada gudahan dadku yaqaan iyo dhula taqaan iyo yaaxeena taqaan iyo garba biyo taqaan iyo qorf taqaan ka cabi jiray dhulka aad meeshan ku sheegina dua meel aan biyo baad midnaada garin dadnaada garanin adigiiba aad ma garanaysaa aad gabanaysi marka horta maalinka igu daray ee ooniga gaajo silaamad u dhimataa waqtigaas ana jeel ku jirtay 2 sano oo bila